kuwa horay u soo qabtay oo horay u soo maray kuraasta iyo kuwa aan u soo marinba oo uu kursi ka lumay oo madaxooda dhan aan ummad Soomaaliyeed ku jirin maxaa yeelay waxaad garan kartaa waxa la mashquuliyo haya hay'adihii amniga in laga been abuurto oo la dhaho mooshinkay saxiixday بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال كسر دوادا برنامج كان ورركي ودن بيي صوماليا يا عالمك قضبضا ورركي نقوة وين وحاكم النقندونا حبهيها بارلمانك فدرالك أو شاعيي إنو تشبي موشيكي لغا كيني مدحوين فرماتو xildhibaanadii mooshinka ku gudbiyay madaxweyne farmaajo oo marka la soo saaray qodobo xasaasi ah kulan xasaasi ah oo dhexmaray gudoomiyaha mursal iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi culimo caanka ah baraha bulshada oo ka soo horjeestay mooshinkii laga keenay madaxweyne farmaajo iyo siyaasi Salaad Cali Jeelle oo sheegay in mooshinka laga keenay madaxweyne farmaajo ay soo abaabuleen argagixisada al-shabaab waa 11 bisha 12 sanada 2018 daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii wararka haatan ku soo dhawaada asagiyo faahfaahsan aan ku bilaawno ee xogayaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in mooshinkii xilka qaadista madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu buray isagoo sheegay in uusan lahayn shuruudihii looga baahnaa qoraalka uu soo saaray xogayaha ayuu ku sheegay in xildhibaanada mooshinka saxiixay markii hore ay ahaayeen 92 xildhibaan balse 14 kamid ah ay sheegeen in laga been abuurtay oo aysan saxiixin mooshinka ka dhanka ah madaxweyne Farmaajo sidaasina tirada hadda hartay ee ku saxiixan mooshinka ay tahay 78 xildhibaan taasi oo keentay in mooshinkaasi uu buuxin waayo shuruudihii mooshinka madaxweyne Farmaajo waa markii ugu horeysay ee xogayaha baarlamaanka uu go'aan ka soo saaro mooshinka laga keenay madaxweyne Farmaajo wuxuuna qoraalkiisa ka dambeeyay qoraal ay hore u soo saareen labada gudoomiye ku xigeen ee baarlamaanka kuwaasi oo mooshinka ku sheegay inuu yahay sharci darro isla markaana xogayaha baarlamaanka ku amray in uusan ku shaqeyn karin go'aano ay sugudoonku isla ogeen dhinaca kale xildhibaanada sheegay in ay gudbiyeen mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ayaa waxay sheegeen in go'aankii uu maanta soo saaray xogayaha baarlamaanka uuna ku sheegay in mooshinkii uu buray ay tahay mid been abuur ah waxa ay sheegeen in mooshinkaasi uu yahay mid sharci ah isla markaana madaxweynaha laga doonayo inuu u hoggaansamo xildhibaanada ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen xarunta Villa Hargeysa waxay uga hadleen halka uu marayo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuuna hadalkoodu ahaa sidaan sida ku cad qodobka 57aad farqadiisa saddexaad ee xoroosaadka soo jeedin mooshin xilka qaadis ee madaxweynaha laguma faafin karo golaha iyo meel kale toona ka hor maalinta ay furmayso dooda soo jeedintaas waxaana maalintaas loo qaybinayaa golaha oo kaliya sidaas daraadeed xogayaha golaha shacabka xaq uma laha inuu sheego ama dhex galo magacyada iyo sharciyada mooshinka laga soo gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee gudoomiyaha golaha shacabku qabtay xaqiijiyayna inuu waafaqsan yahay qodobka 92 farqadiisa 1 iyo 2 ee dastuurka federaalka Soomaaliya xogayaha goluhuna horey u cadeeyay inuu qabtay una diiwaan geliyay soo jeedinta 9 December 2018 sidoo kale waxaan rabnaa inaan halkan kula wadaagno ummadda Soomaaliyeed ee aan ku matalo golayaasha sharci dejinta waxa ay tahay shaqada gudoomiye ku xigeenada golaha shacabka oo maalmihii la soo dhaafay warbaahinta ka akhriyay waraaqo aan waafaqsanayn dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka sida ku cad qodobka 6 xeeroosaadka golaha shacabka xilka gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka gudoomiye ku xigeenka marka uu joogo gudoomiyaha golaha shacabku gudoomiye ku xigeenadu marka uu joogo gudoomiyaha golaha shacabku waxa ay qabtaan oo kaliya wixii gudoomiyuhu u diro xaqna uma laha inay ka hadlaan shaqo uusan gudoomiyuhu u igman marka hore waxaan ka raali gelinaynaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hadaladii gafka ahaa ee ka soo yeeray gudoomiye ku xigeenada golaha shacabka ee aan sharciga iyo dastuurka waafaqsanayn waa nasiib darro aad u weyn inay sidaas u dhaqmaan gudoomiye ku xigeenada golaha shacabka ee laga rabay inay buddigu noqdaan ilaalinta dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagaan sareynta sharciga kana hor yimaadaan habdhaqan kasta oo dhiiri gelinaya keligii talisnimo iyo ku tumasho sharci waxa kale oo aan rabay inaan ku daro arrinta
gudoomiyaha golaha shacabka waxaanu rabnaa inaanu halkan ka cambaarayno xayiraadii lagu soo rogay oo ay ku jirto in cuntada oo uga iman jirtay bannaanka laga gooyo isaga iyo askartiisaba in laydhka laga damiyo oo si joogta ah looga damiyo mararka qaarna loo sii daayo waxaa kaloo aan cambaaraynaynaa in dhaqaaqyadii dadka u imanaya ama uu isagu dalbado ama booqasho ugu imaanayay ee uu raallida ka yahay in laga hor istaagay oo aanay u suuro gelin in ay u tagaan marka in dhaqdhaqaaqa guddoomiyaha oo ah qofka labaad ee maamus ahaan qarankan ugu sarreeya la xayiro waxay la mid tahay in uu guddoomiye ku-xigeenka la isku dayayo inkastoo aanay sharci ahaan suuro gelin in la isku dayayo in xabsi guri la geliyo taasina ma aha suuragal ma aha sharciguna ma aqbali karo annana ma aqbali karno ummadda soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay jawaabo degdega ka bixiyaan arrintaas oo ay dareenkooda ku muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan in sharciga la baarmado madaxweynuhu madaxweyne ku yahay ilaalinta dastuurka iyo shuruucda haddii uu isagu baalmaro shuruucda iyo dastuurka dalka u yaallana madaxweyne ma noqon karo waa ka baxay dhanka kale gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa kulan la leh gudoomiyaha golaha shacabka iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee mooshinka ka keenay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah senatarada aqalka sare ayaa kulan u socda waxaana looga hadlayaa xaaladda cakiran ee dalka haddan uu ku jiro ilaa ay hadda ma cadda waxa ka soo baxay kulamadaas hase ahaatee waxaa loo badinayaa in wax walba ay kusoo dhammaadaan sidii la rabay isla markaana mooshinka madaxweynaha lagala laabto wixii war oo kusoo kordhana waxaad ku maqli doontaan wararkeena soo socda xilli weli ay taagan tahay xiisada ka dhalatay mooshinkii laga gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa dhankooda si adag uga hadlay culimada Soomaaliyeed waxa ayna sheegeen in xilligan aan loo baahnayn mooshin iyo wax kasta oo dib u dhac u keeni kara hanaanka dawladnimo Sheekh Maxamed Idris Sheekh Nuur Baaruud Gurxan iyo Sheekh Cabdirasaaq Jiir oo wariyaasha kula hadlay magaalada Nairobi ayaa ka soo horjeestay mooshinka laga gudbiyay madaxweyne Farmaajo iyadoo madaxda dalka ugu baaqay inay isku tanaasulaan seen oo ku saabsan mooshinka laga keenay madaxweynaha dawladda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo horta warka iyo akhbaaraha aad u lamaana socon labadan maalmood oo muxaadaraadkii aad aragteen iyo mu'tamarkan iyo shirweynahan diineed ayaan ku mashquulsanayn aniga iyo ragga kale oo wadaadadaha culimadaha meesha la joogay laakiin warkan xalay soo duulay oo si kooban loo tusay oo ah in madaxweynihii dalka iyo jamhuuriyadda iyo astaanta Soomaaliyeed laga keenayo mooshin leeyahay la rido waa war aan la qaadan karin meeshii wax laga bilaabi jirayna maaha meeshii wax laga sixi jirayna maaha Soomaaliya muddo dheer bay waxay ku soo jirtay dhibaatooyin iyo rafaad oo dawladnimadeennii ay aad iyo aad hoos ugu dhacday adduunka magaceennuna hoos aaday waxaa hadda muuqanayay ififaale fiican oo intii cabbaar ahba soo socday oo ah inaynu dib ugu soo noqonayno khariidada adduunka iyo maabka adduunka iyo kaalintii aynu ku lahayn adduunka haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyadoo halka u socota waxa la rabaa wixii dhaliila ah adduunka oo dhan waa la saxaayay sidii qaanuunka ahayd oo nidaamka ahayd in loo saxo lamaan baa jira waxaa jira in waxyaalaha la isla iskarayo ama la isla falanqeeyo haddii dawladdu ay wax ku qaldanto baarlamaanku wuxuu joogaa inuu saxo laakiin inuu dawladnimada oo dhan khalkhal geliyo uma socoto mana aha sidii wax loo sixi jiray haddii dawladdu heshiisii qalada ay gashay haddii waxyaalo mucayan ah oo qalada ay gashay oo gaf laga sheeganayo ama gaabis laga tirsanayo waa in la saxaa wixiina la soo proof garaya inta la soo cadeeyo oo bayanada la keeno oo burhaanta la keeno waa waxa loo sameeyay baarlamaanada laakiin sideedaba baarlamaankan oo awalba lagu qaadanayay dadka Soomaaliyeedna ay ku ogolaadeen dawladnimadoodii inay hana qaado aanay ahayn in dadka Soomaaliyeed mid u soo doorteen iyaguna waa ogyihiin dadka baarlamaanka jooga way ogyihiin inaan qof iyo cod lagu soo dooran Soomaaliduna inaanay mid u soo dooran meesha in wada laaluush iyo lagu wada yimaado iyo qof walba lacagtiis iyo dantiis waa la ogyahay laakiin waxaas oo dhan waxa ummadda Soomaaliyeed indhaha ay uga laabanaysaa waxaas oo dhan oo jira bal dawladnimadaadii iyo dadnimadaadii iyo maaragtay shakhsiyadaadii adduunka iyo kaalintaadii ama xoogaa soo noqota
oo adduunka inagu gudaha waxaan doonnaa aan isku ahanay adduunka aan noqonnaa la yidhaahdo dadkii soomaaliyeed waa taa dowladnimadoodii waa taa madaxdoodii astaantoodii waa kaa calankoodii waa kaas intaas weeye waxa dadka soomaaliyeed ay u sabraayeen waxaasoo dhan ugu sabraayeen waxa og yihiin oo dhan oo jira oo meesha iyo waxa lagu shaqaysto iyo waxa maaragtay ka jira marka in haddana wixii la yidhaahdo dib ha loo celiyo waxoo dhan ha la isla dumi oo guriga madaxiisa nin dantiisa waayey ama maaragtay jago waayey ama kontraag waayey ama maaragtay qandaraas waayey ama maaragtay dawlado shisheeye iyo dad shisheeye ay maaragtay soo maalgeliyaan waxaas in lagu shaqaysto oo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda 1500 oo dhalinyaro ah baa halkan fadhiyey maanta qaacadan fadhiyey mid walba wuxuu jecel yahay dhulkiisa inuu wax ka noqdo dalkiisa uu tago ayuu jecel yahay aan ku soo gabagabeynay ee maalin ka hor ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay mooshin ka gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta badan shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta qaarkood ayaa waxay aaminsan yihiin in mooshinkaasi laga soo abaabulay dalal shisheeye hase yeeshee taas waxaa ka duwan siyaasi Salaad Cali Jeelle siyaasiga oo wareysi siiyay warbaahinta dalsan ayaa wuxuu sheegay in mooshinkaas madaxweynaha ay xildhibaanada ka keeneen uu yahay mid lagu curyaaminayo hay'adaha amniga waxa uu sheegay in mooshinka madaxweyne Farmaajo laga keenay ay soo abaabuleen waxa uu ugu yeeray argagixisada uuna ula jeeday al-shabaab runtii mooshinkani runtii wuxuu u muuqdaa mooshin horta wuxuu ku yimid si kelisa hase ahaatee mooshinkani waxaan u arkaa ujeeddada laga leeyahay mid lagu dabraayo horumarka ay dowladda Soomaaliya ay ka samaysay arrimaha dibadda oo aad garan karta geeska Afrika markii ugu horeysay inuu mataqaanaa uu noqday madaxdii geeska Afrika inay gacmaha isqabsatay taasoo markaasi meesha ka saaraysa colaadi soo jireenka aheedoo mar walba mataqaanaa geeska Afrika ka taagneeday oo haddii aad dal saaxiib naqatiinka kale aad colka la noqonaysay taas markii dadkii mataqaanaa mar walba Soomaaliya dhibaatadeeda ku faraxsanaa jira mooshin ay gadaal ka riixayaan oo xoogag shisheeye loogu adeegayo dowladda Soomaaliya horumarka iyo tilaabaha ay qaadana lagu dabraayo saasaan u arkaa runtii aniga yay tahay cidda markaad is leedahay way soo aabushay mooshinkan ujeedana way ka leedahay horta mooshinkan waxaa hadda ay ku fasirayaan xubnaha mataqaanaa mooshinka markaad wareysato waxay ka dhigayaan gorgortan siyaasadeed laakiin waa ka fac weyn yahay maxaa yeele waxaad og tahay inay jiraan dowladda Soomaaliya madax banaanideeda iyo karaamadeeda iyo sharafteeda in mar walba mataqaanaa ay cadow dheeraada oo mar walba soo jireena ay laheeday marka waxaan is leeyahay waad ogtahay dee dalalka aan annaga saaxiibka nahay annaga waxaan ka tirsannahay geeska Afrikana waa ka tirsannahay oo igadaan ka mid nahay marna waxaad ogtahay inaan jaamacatul carab ka mid nahay markaan igad isfahamno ama aan geeska Afrika gacmaha isqabsado waxaad garan kartaa wadamada khilaafka ka jira wadamada carabta oo iyaga naftooda ay sidaad aragtay dhexdooda dhibaatada ka jirta ama Yemen fiiri ama mataqaanaa Emirates iyo waxa ka dhaxeeya fiiri iyo Khaliijka waxyaabahaas waxaad garan kartaa marka dowladda Soomaaliya inay tilaab iyo go'aan horuga qaadatay kadibna mataqaanaa ay soo baxeen saad hore u ogeedba xoogag maalgelinaya Soomaaliya inay tilaab qaadkeeda ay wax u dhimaan iyo xurriyadda iyo mataqaanaa karaamada iyo madax banaanidooda inay mar walba dhaqaale ku bixinayeen wadamadii aad ogeedo aad markii horeba hadda ka hor carabka lagu dhifa jiray daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynay barnaamijkeena aan ku soo qaadanay wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya daawade haddii aad ku cusub tahay subscribe dheh oo share garee lana wadaag asxaabtaada